guri ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Voller ee deegaanada Oxford ee dalka Norway ayaa waxaa ka dhacday istooreeynka oo lagu dhaawacay 2 qofood sida ay boolisku sheegeen. Labadan qofood ayaa waxaa dhaawac uu ka soo gaaray garbaha kuwa oo toorey looga mudmuday ama looga durduray. Booliska ayaa sheegay in aysan ilaa iyo hadda garanaynin heerka uu dhaawacoodu gaarsiisan yahay. Taliyaha howlgalka booliska Melissa Craig ee deegaanada bari ee dalka Norway ayaa ku waramaysa in markii ay goobta gaareen ay kula kulmeen labadan qofood oo tooreeyo looga durduray gacmaha siiba garbaha kuwa oo dhaawac uu soo gaaray. Waxa ayna bahda caafimaadku sheegeen heerka dhaawacooda in aysan ilaa iyo hadda caddayn karin. Labada qofood ayaa da'doodu lagu sheegay in ay tahay 40 waxaana loola cararay isbitaalka si halkaasi loogu dabiibo. Booliska ayaa intaa ku daray in tuhmanaha loo malaynayo in uu falkan tooreeynta ah ka dambeeyay ka oo ka dhacay guri ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Voller ay gacanta ku dhigeen. Waxa ayna intaa ku dareen in qofka tuhmanaha ah ee loo malaynayo in uu ka dambeeyay falkan tooreeynta ah uu boolisku la shaqeeyo oo uusan iska hor imaad ama iska caabin sameyn si nabadana booliska isugu dhiibay. Labadan qofood oo da'doodu 40 lagu sheegay ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Voller halkaasoo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad, iyadoo sidoo kalena qofka loo malaynayo in uu falkani geystay oo guriga kula sugnaa boolisku ay xabsiga u taxaabeen halkaasoo isaguna lagu weydiinayo su'aalo. halka ay wararka kuwooda ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.